garaadada gobolka Sool oo waayadan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa la soo tabinayaa inay xaaladdu ku adkaatay kadib markii ay siday rabeen ka waayeen dawladda federaalka Soomaaliya oo ayadu u muuqata inay qaadatay go'aan dhexdhexaad ah oo aan cid gaar ah lagu beegsanayn ayadoo ay simada Sool miiska Muqdisho la tageen laba qodob oo kala ah inay dawladda dhexe ee Soomaaliya si toos ah ula safato dhaqanka gobolka Sool oo ay ka qayb qaadato dagaalka Laascaanood iyo inay dawladda dhexe magacawdo gudoomiyaha gobolka Sool labadan qodob ayaana ahaa mawduuca ay Muqdisho la tageen isimada dhaqanka gobolka Sool waxaana ay wararku sheegayaan inay dawladda dhexe ee Soomaaliya ka cudur daaratay qodobadaas ayadoo u sheegtay odayaasha dhaqanka gobolka Sool inaysan dawladda dhexe awood u lahayn inay dad gaar ah la safato taasi oo haddii ay dhacdo si kala fogeynaysa midnimada iyo wadajirka ay raadinayso dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay madaxda dawladda Soomaaliya si cad ugu sheegeen isimada dhaqanka gobolka Sool inay qadiyada Laascaanood kala hadlaan madaxda Somaliland taasi oo ay ku sheegeen inay jirto koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay waxna ku bixiyo waxaana uu gobolka Sool ka tirsan yahay waqooyiga Soomaaliya oo hadda loo yaqaan Somaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya sharciyad uma leh inay jarato gobol ka tirsan Somaliland ama ay u magacawdo gudoomiye gobol taasi oo soo afjaraysa doodii ahayd Somaliland hay isaga baxdo gobolka Sool ayadoo ay muuqato inay isimada dhaqanka gobolka Sool waqtigan ku khasban yihiin inay si toos ah ula hadlaan Somaliland sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo marar kala duwan ka hadlay qadiyada Laascaanood ayaa sheegay inay tahay dood siyaasadeed oo u baahan in lagu xalliyo wada hadal isagoo ka codsaday waxgaradka Laascaanood inay joojiyaan dagaalka waxaana ay hadda isimada dhaqanka gobolka Sool ku laabanayaan Laascaanood ayagoo aan hayn wixii ay rabeen waxaana ay tani ka dhigan tahay inay arkeen xaqiiqadii ugu dambeysay iyo in gobolka Sool si fudud looga jari karin Somaliland sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu sheegay dhowr jeer inuu diyaar u yahay xabad joojin iyo in xal laga gaaro xiisada Laascaanood isagoo dhowr jeer oo hore ku baaqay xabad joojin taasi oo ay dhinaca ka soo horjeeda ee garaadada gobolka Sool diideen ayagoo ku tilmaamay inay tahay mid la rabo in lagu kala furfuro midnimadooda sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhawaan qoraal uu ka soo saaray xiisada Laascaanood ugu baaqay Somaliland inay ciidankeeda dib uga saarto furimaha dagaalka ee Laascaanood si loo helo xabad joojin iyo wada hadal waxaana ka jawaabay qoraalka ka soo baxay qaramada midoobay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo sheegtay inay ciidanka Somaliland ee ku sugan gobolka Sool ilaalinayaan dadka iyo madaxbannaanida dhuleed ee Somaliland ayadoo bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland lagu sheegay in qaramada midoobay uu muuqdo in xog khaldan laga siiyay xaqiiqooyinka ka jira gobolka Sool sidoo kale Somaliland ayaa tilmaantay inay caqabada rasmiga ah ee Laascaanood ay tahay maleeshiyaadka ka yimi maamulka Puntland ee ka dagaalamaya Laascaanood kuwaas oo mar walba hurinaya colaadda Laascaanood waxaana muuqata in Somaliland si fudud looga dhaadhicin karin ka baxa Laascaanood waxaana taas ka fudud ayay leeyihiin falanqeeyaashu inay Somaliland qabsato Laascaanood kana saarto huwanta intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada Laascaanood